aanan ku sugin laakiin aan ogaano inta aan isku jirno siduu noo xurmaynayo aan u xurmayno. labada geesood murtida la isku gacansaydo markale anaga aad meel kale abo soo noqo markale maamula noo noqo markale. dadka reer Jabuuti maalinta berri ah oo ku beegan 9 bisha Abriil waxa ay u dareerayaan doorashada madaxtinimada dalkaasi kadib markii maalintii shalay la soo gabagabeeyay ololaha doorashada oo socday muddo 2 usbuuc ah. muddada ololuhu socday waxa inta badan fagaarayaasha laga arkayay madaxweynaha hadda talada haya ee dalkaasi mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo dadweynaha kala hadlaya goobaha lagu qabanayo isu soo baxyada ololaha. Geelle oo markii shanaad u tartamaya madaxtinimada dalkaasi ayaa ololihiisa doorkan waxa uu ku waajahay inuu wax ka qaban doono waxbarashada iyo caafimaadka bulshada reer Jabuuti sidoo kalena ilaalinta midnimada shucuubta dalkaasi ku dhaqan. waxa doorashada kula tartamaya Geelle murashaxiin aan fagaarayaasha iyo ololaha toonna ku cadcadayn oo aan marna laga filayn in ay saaxadda ku celiyaan Ismaaciil Cumar Geelle hogaamiyaha markii shanaad kursiga madaxtinimada ku soo noqonaya. Sakariye Ismaaciil Faarax oo ah ganacsade caan ah oo dalkaasi laga yaqaano horena uga tirsanaa ciidamada dalkaasi ayaa ah murashax bilowgii saansaanta doorashada sheegay inuu tartan la geli doono madaxweyne Geelle balse usbuucyadii u dambeeyay kama soo muuqan qalabka warbaahinta iyo garoonka ciyaarta doorashada lagu dheelayo ee magaalooyinka dalkaasi lagu qabanayay taasi oo ka dhigan inuu ku guuldareystay inuu u babacdhigo murashaxa xisbiga tala dalkaasi haya isla markaana ah madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. ujeedada aan ka leenahay wada noolaanshaha waxa weeyaan xeer inaan isku kala soconno waxa weeyaan kalgacal inaan ku wada soconno waxa weeyaan inaan is-ixtiraamno dadka shisheeyahana inaan soo dhowayno ilaa inta uu isagu na faragelinayo aanan ku sugin laakiin aan ogaano inta aan isku jirno siduu noo xurmaynayo aan u xurmayno noocuu doonay ha ahaad gaalkuu doonaya ha ahaad maskaxda wuxuu doonayaa ku haysto waxaan jecelnahay inaan xidhiidh wanaagsan aan la yeelanno dunida oo dhan. ololuhu intii uu socday iyo soo dhowaanshiyaha foosha doorashada waxaa si weyn loo buunbuuniyey hogaaminta Geelle. kooxaha fanka noocyadiisa kala duwan ku shaqaysta ayaa bulshada ku dhaga barjeeyay bandhig suugaaneedyo ammaan ah oo ay ugu gogol xaadhayaan madaxtinimada Geelle iyo markii shanaad. jirayaasha iyo fanaaniinta casriga ah ee dhulka Soomaalida aadka loogala socdo ayaa la soo kireeyay oo ka qayb galay ololaha doorashada. hadday tala guraacato igu dado xaaja garan waydo labada geesood murtida la isku gacansaydo garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane diga noo maqan markale anaga aad meel kale abo soo noqo markale maamula noo noqo markale dadkaanu macin markale 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 maantale adi mooye salaanka bacdi annagu waxaanu nahay jirayaal dadka afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay la joogaan kuwa ay la joogaan waxaanu maanta joognaa Jabuuti kuwan baanu la joognaa waxaanu la qaybsanaynaa farxadooda iyo rabitaankooda dhabta ah sida awgeed barnaamij yar baanu halkan idinku soo bandhigaynaa waxa la yiraahdaa madaxweyne dadkaagiba hadeginka codsanaya madaxweyne si kastaba ha ahaatee doorashada dadka reer Jabuuti u dareerayaan waa mid loo qabanayo hal dhinac iskana cad tahay natiijadeedu oo aanay jirin xog iyo xiiso badan oo laga fisho oo ka bedelan waxa hadda la ogyahay. muddo 22 sannadood ah oo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne ka ahaa dalka Jabuuti waxay gaadhay horumar ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo oo aad uga horumartay dhinaca dekedaha iyo maalgashiga kaabayaasha ganacsiga. hase yeeshee taasi waxaa barbar taala oo iyaduna caqabadeeda leh deyn fara badan oo lagu leeyahay dalkaasi. ugu dambeyn doorashada dalka Jabuuti looga dareeray maalinta berri waxa ay ka dhigan tahay ciyaar natiijadeeda laga wada dharagsan yahay oo mar kale markii shanaad loogu dooranayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.